السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan. waxaan leeyahay waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. bacda salaam waxaan arkayay maanta maxay ahayd taliyaha ciidanka Itoobiya oo jooga Muqdisho. wuxuu lahaa Soomaaliya maxay ahayd Soomaaliya waxa qabsaday buu yiri koox qawlisata dawladda Xasan Sheekh la yiraahdo oo qabiil buu yiri qabiil kaligeed waa maamul goboleedyada ku xidhnayn oo maxay ahayd la yiraahdo dawladda Xasan Sheekh. wuxuu yiri waasuu yiri wuxuu yiri dawlad lama yiraahdo dawlad lama oran karo buu yiri dawlad ma baaha wuxuu dawlad la xaskal lama yiraahdo buu yiri wax maxay ahayd ciidanka booliska jooga magaalo yar baa ciidanka la mid yahay buu yiri taana yaa sababa awal bagida la iska ogaa Xasan Sheekh fashiliyay oo ka kismaayo ku duulay halkaas fashilka ugu weyn ka dhacay horta waana ka deesagu foolxumo kasta isaga u keenay wadankan Soomaaliya maanta bahdilaad kasta oo lagu sameeyay isaga inoo keeno dadka sida ale inta hoos cararaya oo saw dhunukanaya oo sujuudaya fadeexada aanu keenin maxay ahayd inama haysato waxa la ilaah walba shil la dhigto baa lagu qala mas'uuliyadda isaga qaadaya maanta wadanka Soomaaliya sida maxay ahayd wada yahay bahdilan yahay oo maxay ahayd cid walba qoorsanayso waa sida isagu uu yahay baa wadanku yahay wadan walba waxa matala maxay ahayd madaxdiisa hadday xuntahay wadanku wax loo arkaas wax xun yahay hadday madaxdu wanaagsan tahay kuwa qabli tahayna dee wadanku wuxuu noqonayaa wadan difaac leh oo la ixtiraamo qabli. marka anigu dee isaga fashiliyay maxay ahayd waxaan arkay abwaan garaado kale Soomaaliyeey waxay nagu tahay maxay ahayd gef saas Soomaalidu weyn ka jawaabtaa bula waxay Soomaalidu ka jawaabtaa maad ka qabataan ninkan wadanka kharaabiyay meel walba dadka ka bahdilay orda isku xishooda qabta waxa kaanu isla yaaba ummadda Soomaaliyeed magaceeda idinka dilay qabkeedii oo dib isku noqdo wax ka qabta waxaa ummadda Soomaaliyeed ka qaban kartaa xiriir balama laha Soomaalidu waxa xarig u jiro xiriir balama leh marka sida ay sheegayeen waa wax jira weeyaan xaqiiq weeyaan wadanka hadda Xasan Sheekh ka qaban dalka waa loo yaabaa baan leeyahay ceebtaasna waa ceeb Muqdisho ka timi maxay shicibku sameeyaan macaalanka isku diraan haddaan wax dawladdu difaacaysa jirin oo yadii soo dhunukanaysa balada kasta aragtaba inaanu qiimo lahayn wax ku cadeynaysa wax kasta oo maxay wadamada ka saxiixdaan iyo si kasta oo mataqaana oo hoos cararo saas u bahdilan yahay markasta wuxuu ka dhaxlayaa ay iyo foolxumay baxtay wax la wala shilalka isdhigto waa lagu qalaba sidii Soomaalidu sheegtay marka waxaan leeyahay ilaahay baa jira ilaahay Soomaaliyeed u gargaaro ummadan dadkan argagixisada la dagaalamayaan Puntland iyo wixii la midana waxaan leeyahay guulaysta difaac wadanka difaac kale ma jira difaac ciidamadii xagaas naysa wadayay waa ka khalaas ciidamada jiraan burbure in maamul goboleedyada oo kula dagaalamay kala carabtay oo qoliyaha gacanta looga sheegay noqdeen iyo in loo adeegsado qabiil marka ilaahay ummadda Soomaaliyeed saaciid baan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.